rugta ganacsiga gobolka Banaadir rugta ganacsiga jambarka Soomaaliya gudoomiye Gawayre ganacsada asxaabta dhamaan waa islaamina media ku jiro ya malam qalbiga marka maanta halkan waxaan isku nimid cabasho ee qabta ganacsada gobolka Banaadir taasoo ah wax hore loola hadlay oo hore u yimid taasoo madaxweynaha loo tagay madaxweynaha uu joojiyo oo wax ma jiraan wixii wasaaradda maaliyadda aysan ahayn oo madaxweynaha uu qeexay inaysan jirinba hadda waxaa timid markabkii yimid 12 bisha Maars Lane ala fara badan oo sidii oo intaan meesha fadhiisa dhamaan uu sidii khaasatan ay wuxuu sidii in ka badan konton kuteer uu sidii lacagtii faradku waa iska dhiibay waa doontay DOga doontay waxa la yiri waa inaad bixisaa halkii container oo 20 feet ah $100 40 feet waxa la yiri 150 bixisaa war lacagta canshuur ma ahan lacagtaadi service waa qaadatay wasaaradda maaliyadda canshuurta laada kastamka lacagta ka baalkeen DOga waa noo diiday alaabtii aan keensanay Turki aan keensanay ama Yurub aan keensanay dhamaad kadib muqdisho taala in ka badan 1500 container kadib muqdisho taala tiil oo lacag oo xagga taali dibida taan waxa leeyahay macnaha waa inaad keensataan number tracking number ganacsada macnaha ay sheeg waxa weyn waxay ka cabanayaan waa taas waxa kale oo jira tracking number ka qof kasto alaab soo rarto alaabtiisa asaa tracking garayso online marka waxaan cabash ka nahay shirkadda liirada Maars Lane ama cabash ka nahay taasoo alaabta noo diiday oo alaabta hadda maanta timid intii ka horeysay imida soo raay dhamaan intaan waxay cabashigiirad maanta waxa weyn kaminigaas ugu weyn waxaan ka codsanaynaa wasaaradda maaliyadda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dawladda waxaan ka codsanaynaa in alaabteena loo fasaxa tan dibadda ku jirto tan soo socota in loo sii daayo codsanaynaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.